waxaan shaqada ka eriyey shaqaale anigoo u haysta inuu shaqada ku ciyaarayo ciyaaro games. marnaba kuma fikirin in shirkaddu isla markiiba burbur ku dhowaan doonto. ilbiriqsigii xigay dhammaan serverrada shirkadda way wada istaageen. wicitaannada cabashooyinka macaamiishu hal ilbiriqsi ma istaagin. nidaamkii shirkadda oo dhan wuu xirmay. qiimaha saamiyada shirkadda wuxuu ku sigtay inuu si xun hoos ugu dhaco. haddii aan si degdeg ah wax loo sixin shirkaddu waxay geli lahayd dayn aad u weyn oo aan la qiyaasi karin. markaas ayaan ogaaday qaladkii weynaa ee aan sameeyey. ninkii aan eriyey wuxuu ahaa horumaryaha nidaamka shirkadda. isagu wuxuu ahaa maskaxdii ka dambaysay tiknoolajiyadda 6G. mar kasta oo serverrada cilad ku timaado isaga keliya ayaa ku hagaajin jiray wax ka yar 2 daqiiqo. guddoomiyihii shirkadda mar ayuu siiyey gunno dhan 5 milyan, sidoo kale wuxuu hadiyad ahaan u siiyey baabuur raaxo ah oo qiimihiisu ahaa 2 milyan. intaas kuma ekaan, wuxuu siiyey 10% saamiyada shirkadda. maalintaas guddoomiyuhu safar ganacsi ayuu aaday. wuxuu ninka iyo kooxda farsamada u sheegay inay maalintaas fasax qaataan. aniguse waxba kama ogayn arrintaas. markii aan xafiiska imid waxaan go'aansaday inaan caawiyo aabbahay oo aan iska saaro dad aan u arkayay dad aan waxba tarayn. isla markiiba waxaan arkay ninkaas oo ciyaar ku jira xilliga shaqada. cadho daran ayaa igu kacday. waxaan qaatay koobkii biyaha, wejiga ayaan kaga daadiyey, kadibna isla goobtii ayaan shaqada kaga eriyey. wuxuu ii sheegay inaan marka hore la tashado guddoomiyaha.